waxaa maantay magaalada Gaarisa lagu qabtay maalinta caalamiga ee sida la isugu gudbiyo wararka taasoo lagu qaban jiray sanooyinkii hore magaalooyinka kale ee dalka taasoo maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Gaarisa ujeedooyinka maalintan waxa iiga waramay agaasime Cusmaan Maxamed Aadan waa maadsantahay walaal bismillaahir rahmaanir rahiim magacayda waa Cusmaan Maxamed Aadan shaqadii aan hadda hayo waxa waaye gudoomiyaha ama director-ga shirkadda la dhahaa Ombudsman ama Commission on Administrative Justice waa gartay barnaamijkan Gaarisa aad u imaateen wuxuu ku saabsanaa walaal commission kan oo la dhahaa Ombudsman ama Commission on Administrative Justice waa commission constitutional oo Constitution of Kenya article 159 ayaa soo saaray commission kan shaqadiisana hadii soo koobo waxay ku saabsan tahay cabashada dadweynaha xagga maratay service-ka ama khidmada oo dawladda ay dadka ay xagga adeega dawladda iyo khabarka dawladda ay hayaan dadka in la siiyo marka maanta waxaan u imaanay commemoration waxa inaan sameeyno celebration oo lagu qaban jiray Nairobi ee dhulka sanad kasta la qabto oo la dhahaa International Day on Universal Access to Information marka taasaan u joognaa markii koowaad way commissionku uu soo baxo oo gobolku u imaado oo marka oo dadweynahana marka laga qayb geliyo wuxuu commissionku ku saabsan yahay marka saasaan u joognaa haddii informationka ama wararka la isu gudbiyo maxaa faa'iido oo ay leedahay walaal informationka aadaas muhiim u yahay si aad garanaysa dawladda khidmada ay bixinayso dadweynaha inay ogaadaan sida ay ku heli karaan مثلا qofka haduu u baahan yahay ID-ga shardiga ID-ga marka looga baahan yahay qofka inuu la siiyo hadii ay tahay passportka in maragtay si muddo lagu siiyo wixii laga rabana qofka loo sii sheega marka hadii information waqtigiisa lagu bixiyo sidii laga rabana la bixiyo taas waxay keenaysaa marka adeegii inuu marka si sahal ama si efficient ah dawladda ay ku dhiibi karto laakiin khabarka hadii marka qofka la seenin jahwareer baa ka imaani corruption baa ka imaani marka dawladaha county-ga iyo kuwa national-ka waxa looga baahan yahay inay dadweynaha ay siiyaan information waqti kasta ay siiyaan website ay ku soo saaraan notice board ay ku soo saaraan waxa kale oo muhiim ah dawladda oo county-ga iyo national-ka waxa laga rabaa budgetyaha information ku saabsan budgetyaha sidii lacagaha loo budget gareeyay ama loo isticmaalay dadka in laga wargeliyo oo ay ka warhayaan waa gartay mudane Cusmaan tan iyo intii la foom gareeyay commission-kiinan arrimahan hadda aad sheegayso wax isbedel ama ku yimid commission-ka waa hadda 10 sano ayuu jiraa waxyaala oo hadda isbedelana way jiraan laakiin wali waxaad u malaysaa dadka Kenyanska marka wali dad badan commission-ka inay ka warhaynin marka waxaan isku dayaynaa insha Allah hadii Ilaahay aas idmo Garisna inaan xafiis aan ka furmo xafiiskaas oo regional u noqona Garis Wajeer ee Mandera si dadka marka cabashadooda iyo xagga khidmada dawladda national iyo county-ba iyo xagga khabarka dawladda ay dadweynaha ay ka rabaanba in lagu martay la keeni karo xafiiskaas hadii loo diido hadii wax sax ahayn ay socdaan in marka khabarka la keeni karo marka Garis mar dhow insha Allah waxaan ka furi doonaa xafiiska laakiin hadda commission-ka afar region oo kala ayuu xafiis ku leeyahay Mombasa xafiisas ku leeyahay Kisumu xafiisas ku leeyahay Eldoret xafiisas ku leeyahay Isiolo xafiisas ku leeyahay xafiiskii shanaad oo laga furi doono oo Kenya marka waxaas noqonaa xafiiska Garissa waa gartay fariintaada ugu dambe ee aad Kenyaanka u jeedinayso especially dadka waqooyi bari af Soomaaliga ku hadla dadkan waxaan ka codsanaynaa inay ogaadaan adeega dawladda inay xaqooda ay tahay ayna ahayn wax oo favor dadka loo sameeyna marka arrimaha oo shaqaalaha dawladeed oo marka waxaan dhaqsi soo saar la dhahayo oo lacag lagu siinayo in la dhaafo taas lama ogolo qofka inuu agaado khidmada dawladda inaas xaqiis ay tahay oo xaqiisana aas codsado aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Cusmaan
shukran jazakallahu khayr.